waxaad ku darataa barnaamijka ku deeqo aad ka wada maqsuudo guul lagu kasbanaye ku xirnow. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. kulanti habboon daawadayaasha ku xiran bartan caalamiga ah ee Garaadisatiyo. fadlan ku soo dhawaada muuqaal cusub, muuqaal xiiso leh. fadlan haddii ay tahay markaad kugu horeysa janaalkan, subscribe saar. sidoo kale muuqaalkan xaqiisa waa inaad siisaa like na saartaa, share na saartaa, comment-gana ka soo dhiibataa. haddii muuqaalkan waxaan kugu hayaa waa muuqaal aan kugu soo talagalay qodobo kooban oo ilaa 8 qodob gaaray. 8daas qodob oo ah qodobo naftaada u muhiim ah. maxay yihiin? waa dhiirigelinta naftaada. ya salaam, waa wax wanaagsan. naftaada in aad ogaatid, dhiirigelisid waa wax weyn. laakiin anagu ma danayno laakiin waa muhiim. haddaba aan kula wadaago qodobada aan anigu nafteyda ku dhiirigeliyo, nafteyda u sheego, nafteyda ay aaminsan, nafteyda ay ku dhaqanto. haddaba maxay yihiin? qodobka koowaad, iska ilaali in aad dayacdo waqtigaada oo aad ku lumiso wax aan faa'iido naftaada u lahayn. 2, ka dheeraw ka qoomamaynta waqtiga kaa tagay, waayo waxa ay dishaa qoomamaynta hanka iyo himilada mustaqbalka ama midka dhowba. 3, daqiiqad kasta oo ku soo marta waa in aad u aragtaa fursad aan soo laabanaynin abadan. wayna tahay. 4, u isticmaal waqtigaaga erayga ah sidee uga faa'iidaystay waqtiga. sidee uga faa'iidaystay inaad isticmaashaa muhiima. halkaad ka isticmaali lahayd erayga ah maxay buu ii dhaafay, waqtiga muxuu ii dhaafay, intaad dhihi lahayd waa inaad isticmaashaa erayga ah sidee baan uga faa'iidaystay waqtiga. 5, waqtiga adigoo la saaxiib ee yuusan asigu kaa dhigan saaxiib. waqtiga adigu inaad saaxiib la noqoto la rabaa. xisaabsato, waqti jadwal degsato ayaa laga rabaa. 6, samayso waqti aad ku qiimayso waxqabadkaaga shakhsiyadeed. waxa anaga dhan la dila waxa ay tahay waxa aan qabtay ima muuqdaan. nin baa fiirin ama gabar baan fiirin maxay qabatay, weer bay gaartay, sidaas bay noqotay, sidaan buu noqday, kan balow buu noqday, kan buu noqday baynu dhahnaa. waa in aad samaysataa waqti aad ku qiimeynayso waxqabadkaaga shakhsiyadaada. waxa aad qabatay waa inaad dib u fiirisaa oo aad waqti aad ku xisaabiso, aad ku farxad geliso naftaada. wax wanaagsan haddii qabatay iyo wax xun haddii qabatay inaad waqti samaysataa. 7, samayso waqti aad naftaada ku raaligeliso oo u sheeg in ay tahay mid wanaagsan, wax kastana qaban kartaa. inay tahay naftaada mid wanaagsan, wax kastana ay qaban karto. adduunyada wax dhibaysan jirin, wax walbaba ay awoodi karto. waa inaad waqtigaas samaysataa oo naftaada ugu sheekayso. laakiin anaga maanta waxaa sameynaa heblaayo kaale, waxaan fadhiishan ku haya, heblaayo kaale, hebelow kaale, hebelow intaan fadhiisana war may. waqti aad naftaada kula sheekaysato, aad u sheegto naftaydii wax ka wanaagsan ma jiro yaa la rabaa. qodobka ugu dambeeya ee 8aad waxa uu noqonayaa daawadayaashaydii qiimaha badan oo 8 talo muxuu noqon doonaa? 8 waxa uu noqonayaa ogow waqtigu waa jawharad qarsoon. habeen nasarun bal commentiga noogu soo qor waa sax ama waa qalad. tani muuqaal xiga waxaan idinkaga tegayaa ismaqal aragti dambe oo xiiso leh. nabadgelyo.